السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي أسود وهذا ما أنتوا حسميسنا عنجيرة عنجيرة تبيان هي مرق هذا عنجيرة هدب حتى قص هدبه هي مرق هذا أو مرق إثيوبيان كأ سود وهذا شار يلاقي كومنتي آد بأمها سنتين هل كان حق سوقاتي كيلو بصلة waxaan rabaa inaan jarjaro oo si waaweyn u jaro oo ku dhex rido mashiintaas yacni waaweynka haddaan ugu dhex rido sidaan ay tahay ugu soo weyshiidi laakiin si ay iigu deeqdo ayaan rabaa inaan saa ugu dhex rido oo soo shiido basashaas oo dhan waxaan rabaa inaan maraqa ku sameeyo maraqa Itoobiyaanka waxaa lagu sameeyaa basal badan marka soo dhawaada channelka subscribe dhaha share iyo like iyo comment aad baa u mahadsantihiin basasha weelkaas ku shubanaya makiinada sirta rabaa inaan kusoo shiido oo tan basasha iyo hilibka lagu shiito marka haddana sidaas quruxda badan aan soo shiiday iyada dhan waan soo shiiday marka si yar yar oo qurux badan inuu soo jirto basasheena haddana basasheena waa noo diyaar waxaan rabaa inaan kariyo suugada markaan suugada kariyo kabacdin waxaan rabaa suugada inta muddo dabka saarnaanay hilibka intuu bislaanayo waxaasoo dhan baa la sugayaa marka waxaan rabaa inaan maxaa la dhahaa suugada kariyo markaan kariyo kabacdi burka aan qasto marka burka waa hadda qas hadda dub 10 minute ilaa 15 minute qasnaanay bas ah marka hadda digsiga soo qaato waxaan rabaa basasha inaan qalajiyo marka basasha qalajinaya markaan qalajiyo oo biyaha dadsan ayadoo saliid iyo xuluumo dari karo ma ku dari karo waxaan rabaa inaan ku dardaro waxyaabahan kaleete markay qalasho marka hadda waxa kale laguma dari karo inay intay ka qalaysan sugaya insha Allah markay qalasho isku soo laabanayna haddana basashu inaa soo qalasho waxaan ku darsanaynaa hal bakeeri oo saliid ah suugadan waxaa waa sidii suugadeena kale caadiga camal ma aha waxay u baahan tahay saliid badan haddana waxaan ku darsanayaa basbaas guduud qof walba qiyaastii uu ku darsan karaa aan intaas rabaa inaan ku darso waliba inaan ka yareeyaan jeclaa laakiin intaas aan iskaga darsaday basasha iyo basbaas guduudka suugada Itoobiyaanka oo lagu sheega dhanba waa basashaas iyo maxaa la dhihi jiray basbaaskaas gaduudan marka labadaas saf fiican hadda isku shiisho haddana waxaan ku soo darayaa qaada oo sanjabiil shiidan ah sanjabiilka budada ah marka midka qoyan sanjabiilka qoyan iyo sanjabiilkan kale isku mid waaye guduudkeedan ka baqa wax yar inay guduud ku yaraato waxaan ku darsaday oo kaleete shiishidan wax yar waa hal qaada camal waa iyada dhan aan ku darsanaya marka ayada wax saas ma u baahno suugada kale way ka dhib yar tahay laakiin basashaas badan iyo waxaas ma ogi suugada kale way ka dhib yar tahay marka intaasaan hadda sameynaa insha Allah waan isku soo laabanaynaa suugadeena hadda saas ku dhan tahay hilibkii iyo waxyaabihii kale ku darsan lahaynaa hadda noo dhiman marka soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad haddana waxaan ku darsanaynaa toontii waxaa waaye waan soo jarjaray toon badan ee u baahan tahay suugadan hal iyo laba xabo inaad ku darto ma ahan toon badan ee u baahan tahay marka toonta wax badan ay ka caawinay iyo basasha haday isqabtaan suugada dhadhan iyo caraf ay siinayaan toonta wayna fiican tahay caafimaadka u fiican tahay waxyaabo badan ay u fiican tahay marka toonta waa ku darsanay haddana waxaan ku darayaa biyaha markaan ku daro waxaan ku darsanaynaa haddana hilibkii markaan intaas isku darsano cusbadiisa iyo wixiisa aan dhadhankiisa la soconaynaa daboolka hal mar loo dhiibayaa وبعدين marka wax isku soo noqonayo wadanba malaha marka intaas hadda isku karinayo fiican rabaa inaan kariyo marka iskiila hilib ah oo hilib geel ah oo soo qaaday soo jarjaray soo dhaqay soo nadiifiyay
aan ku daray. marka waxaan rabaa cusbo inaan ku daro. marka maraq digaag yaraan ku daray, cusbo yaraan ku darayaa. khalaas wax dambe looma celinayo, daboolka loo dhiibi. markuu soo bislaado waan isku soo laabaneynaa insha allah. haddana wuu noo bislaaday, suugadeena saanay diyaar ku tahay, way bislaatay. daboolka unbaa loo dhiibay, ayadaa wixii dhan way isdhuuqday, way kartay. macaan hilibkii macaan wixii dhan hadhihin tuu haway dabka saarneed kaligeed. marka waxaan hadda ku darsanaynaa 4 xabo ukun aan soo biyo kusoo kariyey oon suugada ugu talagalay inaan ku daro. marka 4 xabo ukunta hadda ku waraaqinaynaa. bas suugadu way bisasha, xagga iska dhigaya. waxaan gudagalayaa canjeeradeena. canjeerada waa qasayaa 10 minute waa dubaya, horaa ka dubaya. marka hore kasoo qamiiri biyo qandac iyo liibata haddaa ku qasto, hore kasoo qamiiri. halkan waxaan kusoo qaatay baaquli, waxaan kusoo shubayaa 2 koob bur ah. waxaan ku darayaa koob oo galeyda shiidan ah, oo galeyda soorta laga dhigta ah. marka galeydaas iyo burkaasaan isku dhex gelinayaa. waxaan ku darayaa kala cusbo, bas ayada wax kale kuma daraayo, iyo caanaan ku qasayaa. marka iyo liibatada 1 qaado oo liibata ah intaasaan ku qasayaa. marka iyo caano aan ku qasayaa oo marka iyada inta ku filan ah. marka mashiintaan ku qasayaa gacanta, oo aan mixerta intii gacanta lagu qasaya ku qasayaa. marka isla socon insha allah. haddana canjeeradeena diyaar waayo, waa qasay. waxaan rabaa inaan bac korka ka saaro. saasay hadda jileec ku tahay, way ku qasan tahay, soft ku noqonaysaa. waxaan rabaa inaan daboolo after 10 minute ama ilaa 15 meelahaas waa kusoo noqonayaa. biyaha waa iyo caanahan ku qasay qandacay ahaayeen, caano kuleel zaaid ma ah laakiin way kululaayeen iyo liibato. marka dhaqsiga qamiire. marka waxaan rabaa inaan usoo laabto wax yar ka bacdi insha allah. markaan usoo laabto isku soo noqonaynaa. haddana way soo qamiirta canjeeradeena, waan dubanaynaa. birteena dabkaas sii saartay. waxaan rabaa inaan canjeeradeena dubto. suugada waa diyaar. marka canjeeradeena hadda dubanaynaa insha allah. siday noogu soo baxdayna waa isla arkeynaa.
canjeeradeena dubanayna haddana xabadeena u horeysan ku shubanaynaa. hal qaado iyo haafaa kusoo shubtay. waxaa waaye saana u wareejinaya. waxaa waaye sidaasaa ka rabaa inay igu soo baxdo oo yacni indhe ay yeelato. dabool yaraa saaraya si ay ciir iyo huur u noqoto si fiican igu karto. marka guduudkaasay noqotay hoosteeda, laguma sheekeyn karo macaankeeda iyo carafteeda. marka haddii aadan haysanin canjeero Itoobiyaanka oo caadiga oo burka laga sameysto ama geedka laga sameeyo, waxaa waaye wuxuu kaa qaadanayaa waqti badan inay kaas maalmo qasnaato waaye. laakiin tan waxaa waaye si fudud waa waxaan haddaa qasanay haddaa dubanee waa cajiib waaye, wax yaroo macaan waaye. marka sidaas quruxda badanay noogu soo baxday. hadda waa kaas waan dubanay, suugadeennii waxaan dhan waa noo diyaar. marka waa diyaarsanaynaa, soo dhawaada. haddana suugadeena saaranaynaa xabadeenaas. marka say kasoo baxdayna waa ujeediin sida quruxda badan, macaanka, dhadhanka, maasha allah tabaarakallah. soo dhawaada. channelka subscribe dhaha, share iyo like iyo commenti. aad baa u mahadsantihiin. muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.